qodobo dhowr ah oo dhammaantoodba ku salaysan waxyaabo kala gedisan oo isla bariga dhexe ah xaajooyin wada cakiran iyo xiisado cirka ah ayaynu ku eegi doonaa tabintan si gaara waxaana aan ku soo qaadan doonaa dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo sameynaysa isbahaysi military oo ilaalinaya ayay yiraahdeen amniga badda cas dhowr iyo 10 dal oo isbahaysigaasi ah Soomaaliya ayaa ku jirta Xamaas oo ogolaatay in heshiis ay la galaan guddiga Trump uu abuuray ee iyagu hubka dhigista Xamaas ku sameynaya Israa'iilna ka saaraya marinka Gaza ciidamada Iran oo sheegay goor dhaweeto oo haatanba ah weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in ay ku qaadeen dhinacaasi iyo dalka Kuwait ee saldhigyada ciidamada Mareykanku ay ku yaalaan Trump oo ka fakaraya in Kuwait uu ka saaro ciidamadiisa wararkaasi iyo kuwa kaleeto oo dhammaantoodba ku salaysan isla xiisada bariga dhexe ayaan idinkugu haynaa tabintan dabcan dhinaca bariga Afrikada waxaa kaga jira oo khadka sidaad arkaysaanba ila faaqidaya wararkan oo dhan Cabdulqaadir Qayska soo dhawo Qayska warantii aad baan ugu faraxsanahay Jimco Mubaarak ayaan adigana ku leeyahay sidoo kaleeto waxyaabo badan ayaa ka dhacay bariga dhexe haddii aanu eegno dalkaasi Iran markaad eegtid xaaladda dalka Ciraaq xaaladda dalka Sacuudi Arabiya Yemen iyo waliba guud ahaan bariga dhexe waxyaabo badan ayaa ka dhacay waliba xitaa dhanka Masar oo la ogaa markaas in lagu beegsaday iyaduna warar badan ayaa ka soo kordhay markaasi haddii aanu ku bilowno Iiraaniyiintu wali waxay sii wadaan beegsiga ay beegsanayaan qaybaha kala duwan wadamada Khaliijka waxaana saacadihii ugu dambeeyay ay beegsadeen saldhigga Cali Salim iyo waliba midka kale Al Jabir waxaana ay ku beegsadeen diyaarado drones iyadoo la sheegay halkaas inay ka dhasheen qasaare kala duwan dowladda wadankaasi Kuwait waxay noqotay meesha ugu badan ee duqeymaha la kulanta kadib Imaaraadka oo dagaalkii 40kii cisho ee soconayay bariga dhexe gilgilay hadda Kuwait waxaad moodaa in dhibaato ba'an ay soo gaartay isla markaana la dhihi karo 10 sano ama 20 sano ay dib u noqonaysaa xaaladda hadda ay ku jirto marka laga hadlayo sababtoo ah arkaysa Kuwait in markaasi la beegsanayo kaabayaasheedii dhaqaalaha la beegsanayo saldhigyadii muhiimka ah la beegsanayo meelo badan oo muhiim ah waxaan ognahay in dalkan uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan shidaalka iyo naftada ay dhoofiyaan waxaana gebi ahaanba xiran marinbiyoodka Hormuz aysan wax ka dhoofin karin marka loogu sii daro xaaladoodu dal dhan oo hodan ah oo maanta ka hadlaya korontadii markaasi ma shaqeynaysa 40 markaasi 24 saac miyaa la helayaa mise lama heli karo waa dareemi kartaa xaaladda adag marka duqeymuhu wali way sii soconayaan Bahrain sidoo kale way beegsanaysaa ciidamada dalkaasi ilaalada kacaanka dalka Iran waa markaasi weerar xoogan ay ku qaadayaan sidaad arkaysaan daawadayaal shaashadaba saaran sawirkan telefishinka Al Jazeera uu soo dhigay laakiin laga xiganayo wakaalada wararka ama warbaahinta weyn ee Wall Street Journal waxay leeyihiin mas'uuliyiinta Mareykanka ayaan ka xiganay kuwa kamid ah Mareykanka hadda inuu dib uga fakarayo dib u eegis ku sameynayaba joogitaankiisa dalka Kuwait istaraatiijiyadda guud ee dowladda Iran waxaad moodaa inay hadda hirgashay oo ah in ay toos u beegsato saldhigyada waaweyn gaar ahaan saldhigyada Khaliijka si loogu qasbo ciidamada Mareykanka halkaas inay ka baxaan kadibna la isugu geeyo Israa'iil una fududaato beegsigeeda markaas intii 10 meel ay duqeyn lahayd hal meel iyadoo inay markaasi duqeyso marka joogitaankoodu waxaad moodaa qasaare ballaaran inuu gaaray oo waana arin markaasi haddii uu dhaboobo oo waliba ciidamadaasi laga saaro waxaan ognahay diyaarado badan oo yaalay saldhigyo kamid ah kuwa Khaliijka in lala cararay isla markaana la geeyay Israa'iil iyo garoonka Ben Gurion waana sababtii markaasi dagaaladii ugu dambeeyay la sheegay Israa'iil inaysan ugu fakarin sababtoo si ba'an bay u weeraraysaa qasaare badan baana markaa ka gaari kara shalay ba ugu dambeysay Iiraaniyiintu xitaa waxay sheegeen diyaarado dagaal oo nooca F-35 iyo kuwa kale oo casri ah oo F-15 F-16 drones kala duwan iyo waliba ciidamada qaybaha la geeyo inay beegsanayaan waxyaabaha kale ee cajiibkana waxaa kamid ah in meel kasta oo marka hadii meel laga qaado oo hangarre kale la geeyo ama marka meel kale la geeyo oo saldhigyo kamid ah dalkaasi Kuwait ama Bahrain adarkiisa durbadii inay ka warheelayaan isla markaana meesha cusub ee la geeyay iyagu ay beegsanayaan hadii aan u gudubno xaaladda dalka Ciraaq iyo Sacuudiga
saad la socotay xiisad ayaa ka dhex taagnayd Zara iyo inta badan markaas saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran Somali Coverage TV dalka Ciraaq waxaa si toos ah isaguna uga jawaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Ali Zaidi xaalad adag ayuu ku jiray Ali Zaidi waxaa jiray waqtiyadii ugu dambeeyay isfaham dhex maray isaga iyo Mareykanka waana marka mid la doonayay markaasi in Mareykanka iyo Ciraaq la isku soo dhaweeyo isla markaana la iska hor keeno Iran iyo waliba Ciraaq marka waxaa jiray waqtiyadii ugu dambeeyay in la sheegay maleeshiyad ka tirsan kuwa taageera Iran inay beegsadeen qaybo kamid ah dalka Sacuudiga gaar ahaan qaybaha shidaalka Ciraaq waxa markaasi jawaabteedu ay noqotay Sacuudiga inta baaritaanku uu socdayba in Sacuudiga diyaarado uu soo qaatay isaga iyo Mareykanka isla markaana toos ay u duqeeyeen goobaha ay lahaayeen xashdu shacbiga amaba kooxaha hubaysan aan markaasi dawladda si toos ah dawladdu ay ku beereen xogolaha wasiirada bay ku jiraan xitaa laakiin marka la eego asalkoodu ciidamada kamaysan imaanin waa maleeshiyad la aasaasay oo qabaa'ilka iyo waliba nin kastoo qori qaadi kara ha qaado lagu keenay kadib markii kooxaha argagixisada ee Daesh iyo kuwa kale la midka ay ku faafeen qaybo badan oo dalka Ciraaq ay qabsadeen oo fatwo wadaadada diiniga iyagu ay soo saareen kadib ayaa lagu aasaasay marka dawladda Ciraaq iyo waliba iyagu way hanjabeen waxaana ay tilmaameen 40 cisho ee xuska ka socda magaalooyinka barakeysan ee dalka Ciraaq inay sugayaan isla markaana jawaab culus ay ka bixin doonaan tiradii kaga dhimatay Sacuudiguna waa uu hanjabay laakiin waxa jira dhinacyo hadda isku dayay in xiisadooda la dajiyo waxa ugu sii darsoomay madaxweynaha dalka Mareykanka xubin kamid ah aqalka cad oo la xigtay oo ku waramay in xitaa ay ka warqabeen dawladda Mareykanka in Ali Zaidi uu isagu ka warqabay waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu markaa xog la siiyay in la beegsan doono goobaha markaasi kooxaha Ciraaq taageera ama xashdiga loo yaqaano ee kooxaha Shiicada ee hubaysan markaasi taasoo carada keentay markaasi inay sii korato waliba heer ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba la kansalay booqashadiisii jadwalka ku jirtay ee uu ku tagi lahaa dalka Saudi Arabia marka wali xiisadu way taagan tahay meelo badan oo kalena oo Yemen iyo isbahaysiga waa jiraan marka waxaa jirta Cabdulqaadir dhinaca kaleeto in isbahaysi Saudi Arabia ay ka fakarayaan military oo la dhisayo kuwaas oo ay rabaan in badda cas ee amnigeeda gacanta ku soo celiyaan dhowr iyo 10 dal ayaa kamid ah dalalkaasi la tiriyay waxaa kamid ah Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Turkiga, Egypt, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Soomaaliya iyo Djibouti waxaana laga reebay Imaaraadka Carabta iyo dabcan Cumaan marka maxay tahay sababta labadan wadan looga reebay dalalkan kaleetana uu Sacuudiga u soo dhaweysto u dhahay isbahaysigan military qayb ka noqdo waa mahadsantahay Zara isbahaysigan shalay ayaa lagu dhawaaqay dhowrka cisho la soo dhaafana daaha gadaashiisa warbaahinada ayaa si hoos u tabinayay 14 dawladood ayaa khamiistii sheegay inay markaasi aasaaseen isbahaysi lagu talagalay dhanka badda oo difaaca oo waliba hogaaminayo Saudi Arabia oo lagu beegsanayo Xuutiyiinta yani waxa lagu furayaa maribiyoodka Bab al-Mandab baaliri laakiin waxa muuqata in lagu beegsanayo Xuutiyiinta markaasi waxa ka qayb galay 43 dawladood oo wakiila kaga jooga dawladda Saudi Arabia oo ku jira kuwa Yurub iyo kuwa kale asalkana waxa loo yeeray 51 dawladood laakiin aakhirkii 14 dawladood ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay iyagu diyaar u yihiin inay isbahaysigan la aasaasaan dabcan mid haddaan u kala qaadno dawlado waaweyn oo miisaan leh ayaa ku jira kuwa qaarkoodna sababo gaar ah loogu yeeray ayaa jirta marka haddii aanu ka horeyno Sacuudigu waa dalka isagu xiisada qayb ka ah dagaalka kula jira Xuutiyiinta dawladda Qatar isbahaysigii hore bay markaasi ku jirtaa farinta tooska ah ee dawladda Qatar ay dirayso iyada iyo Kuwait iyo Bahrain waxay tahay in siyaasadda boqortooyada Saudi Arabia ay ku gowracan yihiin wax kasto ka dhaca xiisada gobolka ee Sacuudiga meeshuu aadayaan maanta hadii Sacuudiga heshiis Israa'iil la galo Kuwait toos bay u raacaysaa Bahrain mar hore bay dabaalatayba marka laga hadlayo Pakistan sababtay ugu joogto Pakistan heshiis difaaceed ayaa kala dhaxeeya dawladda Saudi Arabia ciidamada u fara badan oo 30,000 ka badan ayaa markaasi la sheegaa inay joogaan dalka Sacuudiga gaar ahaan deegaanada xadka markaan eegno
turkiga waqtiyadii ugu dambeeyey isu soo dhawaansho ayaa jiray oo turkiga iyo weliba sacuudi arabiya u dhexeeya masarna waxaan ognahay dowlad aad ugu dhow sacuudiga inay tahay markaasi turkiga ma toos ayuu dagaalka qayb uga noqon doonaa ma cadda ilaa hadda sababtoo ah turkiga lafsadiisu culays badan baa saaran oo xiisadda waxaan ognahay in xiisad culayskeeda le ka haysato dalka suuriya haddii markaasi dhanka marinbiyoodka babel mandab ayaa uu tegayaa oo markaasi saameyn uu ku yeelanaya la yidhaahdo waxaan ognahay soomaaliya dhankeeda inuu isagu ku sugan yahay israa'iil sidee bay uga falcelin doontaa iyaduna waa culays kale oo miisaankiisa le marka la ego urdun waa dal marka isaguna saaxiib laha sacuudiga bangladesh nigeria laakiin marka la ego wadamada jabuuti soomaaliya iyo suudaan iyo masarba ku dar khubaradu waxay tilmaamayaan sababta loogu yeeranayo waxay tahay in sharciyad laga helo maadaama hareeraha badda cas iyagu ay joogaan marka muhiimna ay u yihiin arrinta ku saabsan in marinbiyoodka babel mandab maadaama iyagu ay aad ugu dhow yihiin inay noqdaan dalal qayb ka ah weliba xalaalayn kara isbahaysi kasta oo si sharci ah markaasi la doonayo in lagu ergeliyo su-aashaada anigu usoo socda isbahaysigan muhiimadiisu waxaad moodaa inaysan weli dalalka yurub iyo maraykanka ogolaasho rasmi ah siinin way ka fakerayaan baa layidhi dowladahaasi talyaaniga baa loo bandhigay iyo dowlado kale oo culayskooda leh laakiin marka ay ku milmaan xuutiyiintu ma aha markaasi kooxo toos meel iyagu markaa jooga oo dhanka badda buuraha bay ku dhex jiraan waxaad arkaysaa in saldhigyo badda dhexdiisa ay u yaallaa inaysan jirin laakiin wadamadan marka ay ku milmaan colaadan ka hor kale sidee bay noqon doontaa xaaladda iyo wejiga kale lama garanayo dowladda imaaraadka carabta maxay uga mid noqon weyse waxaa tani ay muujinaysaa khilaafaadka u dhexeeya sacuudi arabiya iyo weliba imaaraadka oo weliba ay ku kala aragti duwan yihiin meelo badan oo ay ugu horeyso dalka yemen imaaraadka wuxuu taageeraa kooxaha goonigosadka cidriis zubaydi isagoo madax ka yahay magaalada cadan waxaa la socotaa inuu ciyaarayo marka siyaasad cadowgii marka cadowgiisu waa saaxiibkaaga marka la ego markaad fiirisid wariyaasha waaweyn ee taageera ama goonigosadka fikraddaasi iibinaya inay dood ka qabin marka la ego weeraradii ugu dambeeyey la beegsanayay sacuudiga oo ay taageerayaan xitaa xuutiyiinta markii hore dagaal ay kuli jireen marka siyaasaddu aad bay isu bedbedelaysaa oo dhinacyadan khilaafaadkoodu wuu soo muuqanaya shalay xitaa waxaa la arkayay rag ku dhow dowladda imaaraadka oo si adag u aflagaadeynaya ama markaa beegsanaya kelmado aan miisaan aan mudnayn marka la ego sacuudiga masar iyo dowlado kale marka khilaafaadkoodu ayaa ugu weyn ayaa la dhihi karaa isbahaysigan waa looga reebay runtii jabuuti iyo soomaaliya iyo sudaanna sababtaas ayaa keenaysa in lagu daro xiisada bariga dhexe gaar ahaana dhinaca badda cas saameynta ay leedahay iyo inta ay la eg tahay awgeed isbahaysi keliya sacuudiga uu ku dhawaaqay wax badani ma ka bedeli kartaa bay kula tahay sacuudigu wuxuu ciyaarayaa laba arrin oo ah sacuudigu kow marka dhanka badda ah laga duqeeyo cirkana waa laga duqeynayaa waxaana hadda uu bilaabay inuu kiciyo qabaa'ilada iyo dadka yemaniyiinta ee deegaanada hadda gacantooda aan ku jirin xuutiyiinta iyagu ay is abaabulaan hubkii aad u fara badnaa ayaa la diyaariyey hub aad u fara badan waxaa la diyaariyey gaadiid dagaal dhaqaale fara badan ayaa markaasi hadda lagu shubaya yeman sacuudigu waxa uu sidoo kale ka baxay eraboradii uu ku sugnaa oo ciidamadiisu ay ku sugnaayeen xataa eraborada rayidka waxaa la sheegay in qaab military loo adeegsan doono waxaasoo dhanba waxay markaasi noqonayaan waxyaabo u gogol xaaraya dagaal cirka badda iyo weliba dhulka oo la rabo yeman qaybta xuutiyiinta ay haystaan in lagu beegsado dagaalkan wuxuu xadidi doonaa xuutigu ma ku jebi doonaa mise waayo gulufka colaadeed ee sacuudiga hadda uu soo karkarinayo waa mid aad iyo aad u xoogan laakiin waxaa hadlay goor dhoweyd cabdilmalik alxuuti oo ah hogaamiyaha kooxda xuutiyiintu waxa uu sheegay si kasta iyagu ay weerarka ay usoo qaadaan inay iyagu beegsan doonaan sacuudiga in markaasi digniin toosa u dirayo markaa sacuudiga iyo weliba yemaniyiintu inaysan markaa xukuumadda cadan fadhida wax badan ama qaybo ka mid a markaa deegaanada koonfurta inaysan wax badan iyagu dembi ku lahayn marka la ego arrintan sacuudigana gadaal uu ka karinayo ay beegsan doonaan gudaha sacuudiga jawaab culusna ay ka bixin doonaan
weerar kasta oo lagu soo qaado waxa xusid mudan haddii aan ku darsado saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay xuutiyiintu inay gaareen heer hubkoodu ay samaystaan oo gudaha Yemen ay ku samaystaan gaar ahaan Sanca waxaa sidoo kale la tilmaamayaa xuutiyiintu in ay dhaawac weyn u geysan karaan marka la eego dhaqaalaha caalamka iyagoo jari kara internetka iyo waliba keebalada hoos mara gaar ahaan wadamada khaliijkan aad u saameyn doona badda hoostooda marka sidoo kale 40,000 ilaa iyo 10,000 tiro u dhaxaysa ayaa la sheegay in ay markaasi haystaan drones iyo hub aad u fara badan runtii ma sahlana waan arki doonaa laakiin waa tahay daawadayaal intiina haatan ugu soo biirtay wali waxaad nagala socotaan Somali Coverage TV waxaana ka hadlaynaa xiisada bariga dhexe oo dhowr waji leh isla markaasina siyaabo kala gedisan ay uga dhacayaan gobolka intiisa badan xasarado dagaal iyo xiisado kala duwanba waa tahay Cabdulqaadir waxaa jirta adigoo mahadsan in uu hadlay masuul sare oo ka tirsan dalkaasi Ciraaq isla markaasina uu jawaab ay ka bixisay dawladda Ciraaq taasi oo sheegashada Trump ay ahayd in weeraradii lagu qaaday dalkaasi Ciraaq ay qayb ka ahayd dawladda Mareykanka isla markaasina Sacuudi Arabiya ay soo qaaday maxay yihiin waxyaabaha uu ka hadlay masuulkaas Zara haddii aan soo koobo qaybtaasi Ciraaq marka la eego hadaan ka hadlayay ayaan ku daray laakiin si faahfaahsan haddii aan uga hadlo afyeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda ama afyeenka xukuumadda dalkaas Ciraaq xukuumadda hogaamiye Cali Zubaydi ayaa beeniyay in Cali Zubaydi uu la ogaa ama wasaaraha dalkaas uu la ogaa Trump booqashadii uu ku tagay dalka Mareykanka oo loo sii sheegay in la beegsanayo kooxaha ay taageerto Iran isla markaana waxaad ogtahay Trump inuusan waxba qarin in markaasi isagu waxaad ku heshiisaan hadda cawada aad ku wada hadashaan qays haddii berri aan meel saaran haddii aad ku wada hadashaa caawa habeen dambe uu leeyahay aniga Zaaro sidaas baan marka ku wada hadalay marka nin sahlan ma aha marka waxaa la aaminsan yahayba inay xogtan jiri karto sababtoo ah ninkan isagu waa nin u janjeera Mareykanka markii horena uu ku yimid cadaadiska dalka Ciraaq waxay ku jirtaa marxalad aad u khatar badan sababtoo ah Ciraaq Iran kama maaranto arrin isku xiraya ayaana jira dowladda Sacuudiga iyo waliba dowladaha khaliijka waqtiyadii ugu dambeeyay waxay ciyaarayeen doorashooyinka inay soo saaraan dad ay iyagu taageeraan ama dad siyaasadoodu aad iyo aad markaasi u taageera waxaa ka mid ah wadaadka waxay ku guuleysteen inay bedelaan fikirka wadaadka hubaysan ee Muqtada as-Sadr laakiin keligii waxba kama bedeli karo sababtoo ah Iran waxay saraakiil iyo ciidanba u soo dirtay waqtigii dagaalada ay ka jireen 2014kii ee hogaamiyaashii Daesh ay ka qudbeynayeen magaalooyinkii Mosul iyo kuwa kale ee la midka ah markii inta gabdhaha Ciraaq iyo Zaydiyiintii iyo waliba